haweeneydan waxay haysatay faraanti dahab oo qiimihiisa qaali ah marka ay dhimatayna wuxuu rabay ninkeed inuu faraantiga farteeda ka soo saaro laakiin taas way u suurad gali weysay maxaa yeelay markay dhimatay gacanta way soo barartay marka uu ka soo saari waayay faraantiga marka sidii ayuu ku aasay xariif tuug ah ayaa imaaday wuxuu damcay in faraantiga qabriga kala soo baxa qabrigii ayuu faagay haweeneydii ayuu soo saaray wuxuu damcay inuu farta ka gooyo markuu bilaabay inuu farta ka gooyo haweeneydii khaylo ay la soo toostay maxaa yeelay ma dhimanin way suuxsaneed dadkiina way aaseen xariif tuuga ahaa meesha ayuu naxtin la dhintay haweeneydii way baxday orod ayadoo farta dhiigayso gurigeed ay aaday albaabka ay garaacday ninkeed ayaa ka furay albaabka meesha ayuu ku dhintay tuu naxay cabsi ama naxdin ayuu la dhintay wuxuu u malaynayay reer aakhireed hal ay taxaal godkii ayada ka soo baxday ayaa ninkeed lagu aasay ayadana muddo ay noolaatay markay dhimatayna qabrigeed waxaa lagu qoray hal mar ay dhimatay laba marna waa la aasay ama waa la duugay